xubinteena ciyaaraha ee maantana waxaan ku eegi doonaa qodobo kala duwan oo ku saabsan ciyaaraha. Haddii aynu eegno horyaalka Sacuudiga, dalkaas oo beriyahan noqday mid caan ah isla markaasna ciyaaryahanno waaweyn ay yimaadeen, ayaa waxaa xalay taariikh cusub ka sameeyay Cristiano Ronaldo. Ninkan oo ka yimi horyaalada Yurub waxa la lahaa waa uu gaboobay, iminka wax badan tari maayo. Laakiin horyaalkii Sacuudiga xalay taariikh buu dhigay, waxa uu noqday top scorerka ama ka ugu goolasha badan ee horyaalkaasi. Isagaa iminka haysta 35 gool ayuu dhaliyay, 11 waa caawiyay, 30 kulan oo ciyaaray. 39 jirkan reer Portuguese waxa weeye waa la yaabaya gool dhalintiisa iyo farsamooyinkiisuna iyo da'da iminka uu jiro ee la sheegayo aad iyo aad bay u kala dhow yihiin, u kala fog yihiin. laakiin waxa weeye ninkaasi saameyn badan ayuu sameeyay kubadda cagta, nin gaboobana maaha. marka ninkan waxa weeye dad badan oo hore uga soo horjeeday oo ninkii bahalkii Messi inta badan gacanta saari jiray malaha iminka waxa weeye waa aqoonsadeen ninkan inaan cimaamadiisa la haysan karin. isagaana iminka noqday ciyaaryahanka ugu goolasha badan taariikhda Sacuudiga oo beriyahan sida aynu sheegnay noqday liig aad u weyn oo kamid ah kuwa la daawado. sidoo kale Cristiano Ronaldo waxa uu xalay noqday ciyaaryahanka kaliya ee 4 horyaal ee kala duwan top scorerka ku jira. La Ligaha waa noqday, Serie A wuu noqday, Premier League wuu noqday, Saudi Premier League-na xalay ayuu noqday. marka ninkan wax weeye dhan kasta ka dhisan, jir ahaan, farsamo ahaan, inkastoo da'diisu iminka weynaatay, haddana waxa weeye ma hawl yaro. gaaladu waxay yiraahdaan old machine bay yiraahdaan, waa machine aan ma garanaysaa ninkani gaboobay, macnaha waxa weeye da'di kama muuqato, waa machine-ka wareegayo. sidoo kale haddii aynu eegno waxyaalaha kale ciyaaraha ku saabsan, Modric ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Real Madrid ayaa la sheegay inuu ciyaaraha kaga fadhiisan doono kooxda noloshiisa ee Real Madrid sida uu isagu sheegay. waxa uu sheegay inaanu iminka go'aamin karin, laakiin waxa uu sheegay in koobka Champions League ee finalka ay la ciyaari doonaan Borussia Dortmund uu go'aanka u dambeeyay gaari doono, laakiin uu jecel yahay inuu kubadda cagta kaga fadhiisto kooxda Real Madrid sidii saaxiibkiisii ka horreeyay Toni Kroos sida uu isaga laftiisu xusay. waxaanu yidhi gurigan waa gurigii riyadayda. wuxuu sheegayay garoonka kooxda Real Madrid ee Bernabeu, kaas oo uu muddo badan ku sugnaa. marka waxa uu leeyahay halkan ayaan anigu kusoo gabagabeyn doonaa ciyaarahayga, markaan ka fadhiistana kooxdan ayaan kaga fadhiisan doonaa. tababaraha kooxda Chelsea Enzo Marquez ninka la yiraahdo ayaa waxa isaguna iminka dhinac kasta ay dhamaatay oo waxa uu noqday tababaraha cusub ee kooxda Chelsea la ilin doona xil ciyaareedka soo socda. markii hore Murko wuxuu ku tagnaa sida Leicester City ay u aqbali doonto waxa weeye dalabka Chelsea ee tababaraha inay doonayaan, laakiin iminka lagu heshiiyay waxaana uu noqday tababaraha cusub ee kooxda Chelsea. ninkaasi kooxda Chelsea waan ogeynaa way eriday tababarihii intii dambe kooxda leelinayay, laakiin dadka ciyaaraha falanqeeya waxay sheegayaan war iminka un bay haddana kooxdani geeris sii gashayo meel ay u socoto iyo meel ay ka socoto midna waxa weeye ma jiro. laakiin bal hadda halkay caga dhigato waa arki doonaa kooxdii maxay ahayd Chelsea oo tababaro cusub oo waliba liiga ku cusub oo xagga hoose ka yimi. bal hadda halka uu caga dhigo iyo waxa uu Chelsea u soo kordhiyo labadaba waxa weeye waa arki doonaa. heshiiskana dhawaan baa la saxiixi doonaa. tababaraha kooxda Aston Villa Unai Emery ayaa isaguna waxa uu saxay heshiis cusub oo dhici doona 2029. in heshiiskii hore ma dhamaan, laakiin heshiiskiisa ayuu kordhiyay. kooxduna waxay ugu kordhisay maadaama uu kooxda u soo saaray koobka Champions League ee qaaradda Yurub, isla markaasna uu ka muuqday 4 kooxood ee ugu sareeyay horyaalka Premier League sanadkan. runtiina waxa weeye in dadaal badan buu sameeyay kooxda iyadoo dhulka taalo soo kiciyay, meel fiican ayuu keenay, wuuna u qalmay runtii heshiiskaas inuu kordhiyo 2029 ayuu kale ka dhici doonaa. isaguna waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu halkan sii joogo kooxdana sii layliyo. laakiin Ingiriisku waa hawl badan yahay,
bal waa arki doonaa hadda ninka odaygaana waxa uu kooxda kala kulmo iyo weliba halka uu gaarsiiyo.